golaha fulinta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ka dooday daraasad ay soo diyaariyeen khubarada Soomaalida ee deegaanka iyo deegaanada kale ay Soomaalidu degto. daraasadkaas oo lagu soo bandhigay xidhmo muujinaysa kaltirsiga af Soomaaliga ee maalmaha bilaha iyo sanadka. golahu waxa uu soo dhaweeyay kaltirsiga waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo lana kobciyo luqadda af Soomaaliga. golahu waxa uu ku dhiirigeliyay xafiiska waxbarashada oo gacanta ku haya manhajka iyo hay'adaha dhaqanka kor u qaadida barashada kaltirsiga af Soomaaliga. in badan baa intii hadda muddo ahayd yaa in Soomaaligu uu yeesho kaltirsi oo isagu leeyahay maadaama aqoonta la baranayo qolo walba dhaqankeeda iyo afkeeda wax dhaxal ah oo ilmaha uga tagaan la doonayo ayaa waxay noqotay in deegaamada kala duwan ee Soomaalidu ay leedahay laga sameeyo daraasad kaltirsi ah. markaas si guud baa markaas 2021 bishii labaad baa markaa la soo saaray kaltirsi lagu midaysan yahay oo gudiyaashii meelaha kala deegaamada kala duwan ka yimid isugu yimid iyo 19 jaamacadood oo Soomaali deegaamadeeda ka howlgasha yaa waxay ansixiyeen kaltirsigan hadda maanta aan meeshan idinka akhrin doono. taasna waxay noqotay kaltirsigii bilowga ahaa ee ay yeelan lahayd Soomaali meel ay joogtaba. kaltirsigaas oo maaragtay laba meelood laga duulay sida dhaqanka kaltirsiga cadceeda oo maaragtay godadka toddobada ah xidigaha laga duulay oo min 428 god baa laga duulay. midaasi waa 365 maalmood bay noqotaa. midda kaleeto midda dayaxa weeyaan dayaxoo bishiisu waxa weeyaan 15 dhalad midaasoo noqota 30 markaa 354 bay noqotaa maalmaheedii. taas marka ma ay buuxsamin sidaa darteed waxaa la qaatay midda cadceedda marka la qaadanayo godadkii ay cadceeddu ahayd si maaragtay 7 god ee min 4 ahaabaa bilbiluhu ku jiraan. midaasoo daliil badan oo maaragtay abwaanadii iyo hal abuuradii aftahanada ahaa laga soo qaadanayo mitaal raagowgaas inuu yiri afagaal la urur soo bax baan uur habreed galay marka afagaal inay biltahay baa la qaadanayaa. 14 baan dhashay dirir arooriyaade marka dirirna inay tahay bil oo dhashay hooyadayna aargudahay aragtay waagii maasiibka galay maxaan la dhigi waayay. marka waxaa la gartay labada bilood markii la isku soo daray ee qabtay midii uu dhashay iyo midii uu caloosha hooyadii galay maalmihii markii la qabtay la tiriyeyna 270 ama 269 bay noqotay iyo habeen ku dhalanayay. marka waxay noqotay 270 maalmo habeen waxay noqotay 9 bilood. marka taa markii 9 bilood markii maalmihii uu ka dhashay iyo markii laga reebay inihii ka tagay iyo inihii u laabnaa xilliga inay 30 bilahaasu galahayaan yaa iyaguna la soo saaray. sidaasaana kaltirsigan yuu ku habaysan yahay oo godadka markaa bisha koobaad asal ahaan aad iyo aad baa waxaa markii loo eegayba waxay noqotay dabshidka ama se nayruuska inay tahay bisha koobaad ee Soomaaliga iyaduna xagaagii ku aadaa. marka naaf baa bisha koobaad kudxin dirir gudba xoreey darabley cirir uur duugato meecaad agaali iyo afagaal weeyaan 12 bilood. marka ay golahu isku raaceen guddigii cilmi baarista ee kaltirsigu 12 bilood bay isku raaceen iyaduna sidaas ay ahayd. hadda waa la soo dhaxdhigay maaragtay waa la soo hordhigay dowladda deegaanka Soomaalida golaha fulintiisa waa la si qoto dheer baa looga dooday waxayna qaateen inay xidhmadu siday ahayd bilihii iyo maalmihii iyo sanadkiiba daraasaadkaas ay xeeldheerayaashu ku keeneen say tahay in loo qaato wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda dhaqankuna ay mas-uul uga ahaadaan oo ay geliyaan maaragtay manhajka inuu geliyaan lagu daro oo ay sidaan noqoto wixii kolba
maqaawiirta iyo xeeldheerayaashu daraasaad ay ka sii wada hayaan kolba lagu soo kordhin doonana in iyadana sideeda loo sii wadi doono si loo ilaaliyo dhaqankeena iyo afkeennii aan lahayn iyo bilihii ay Soomaalidu dhaqan u lahayd ay soo saareen guddigan maaragtay cilmi baarista ee kaltirsigu hadbana loo sii kobcin lahaa loo sii dhowri lahaa maaragtay dadka ilmaha dhaxal loogu reebi lahaa dambe meel iyo ruuxii cilmi baaraaba meeshii ay ka sii bilaabi lahaayeen haddana dib uga sii duuli lahaayeen inay u noqoto aasaas saldhiga inay u noqoto aad baan ugu mahadinayaa guddiga fulinta iyo madaxweyne ku-xigeenka inay qaataan maaragtay daraasaadkan isaga ah oo qiimeyntiisa leh aynan aadna waan ugu faraxsanahay inay maaragtay noqotay waqti maaragtay lagu wada baraarugsan yahay dad walbaba qoomiyad walbaba sida dastuurka u fasaxayo inay afkooda iyo dhaqankooda dadkooda ku maamulaan midaas oo ay sidaa tahay inaan sii wadno oo qolada maaragtay meelaha aan ku jiro ee cilmi baarista ee akadeemiyadaha la wada leeyahay maaragtay Soomaali ah sidaas inaanu sii tarmino afka oosan afka Soomaaligu dhimanin dhaqankiisii dhimanin maaragtay wixii uu dhaqan iyo taariikh u lahaa ama bilo ahayd ama sanad ahayd ama maaragtay hadal ahayd ama hawlaal ahayd mar walbana in lagu dadaalo oo aanu manhajka ku daro oo sidaas baanu iyadana ka sii shaqayn doonaa golaha howlfulinta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa go'aamiyay in maanta wixii ka dambeeyay ay dowladdu isticmaali doonto bilaha kaltirsiga af Soomaaliga ee horey loo sheegay